يو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيق وعباس جنرك عباس باي صاحبي الأمانتين واني سلامي سلام كدب صاحبي الوحاني شيغا إن حلقة صدحي تمناد إيتا حلقة أوضن بيس بارتيك لباد سيسون تريغا حلقة كدبنا وحانوغو حيغ بارتيك لباد أو دقال ودا الصعداء بارتيكاس نوحو كوسابسيا مركب بلاونا أركي دونا إن شاء الله لكن سيدو كل وحاجر ضد ولي أباهم بوغ دمشادا إن لو صادقو أكيد صاحبي هاول ولينا وصادقا بوغ دمشادا هانك ولينا إكير وانا أركي دونا دقال كود ما هو كود بينايو وانا أوغا حتى جوسي صداني السي حتى ويركي تيتينسكا بوغ دمشادا waxa soo dhigayo in badan weerkii teetiska guuleysanaya sababtoo dadka badan xiiseynayaan badan marka go'aan kaliya iska ma qaadi kariyo wax maska soo dhigi karo laakiin waxaan siinaa fursad kale Joseph Mnisina laakiin fursad kale Mnisina commentiga soo galo qof walba waxa ku qoran next book dhimashada qofka kalena next weerkii teetiska aniga wax xisaabina codka badan aan qaadana insha Allah marka xalqadiina bilaaban doona insha Allah xalqadiina maat waa macda sidoo kale waxa u maleeyahay saaqiyaasay xalqada ugu degan oo nabad ah in ay noqon doon xalqad kale sida tan oo kale oo degan ma arkayna ba maleeyahay sarjeenayo sidaas isku ognahay si xalqadiina u bilaabano noo saliix xabiibkan Muhammad sallallahu alayhi wasallam xalqadiina noo bilaabo俺たちがやることはただ一つ戦えmarkay Sooria orday go'aan ku gaartay in ay erin badbaadiso sidoo kale erin oo ka dalbaday inuu iskaga dhaaf sababtoo ah qaladaadku aabiisa galo dusha saartay markaasna Sooria waxay ku dhiirgelisay inuu aadana uu ka fikirin oo kaliya ka fikirin nafsadiisa ayadana ay tahay gabadh ugu xun dunida sidoo kale ay ka soo horjeestay aabaheeda laakiin Sooria waxa soo dhan waxa ka keenay xanaaq hadalada xun oo aabaheeda u dhahay markaas gudaheeda inta lagu jiro roodeysto gurgurto wuxuu dhacaan carabkiisa saar markaasna wuxuu isku bedelay teeta weyn sida teeta weynka oo kale isbedelka uu isbedelay ayaa meesha dhan burburtay meeshii 100 sano oo teeta asaasiga sameynaya boqortooyada lahayd Sooria kaliya isligida erinka furi karto guuxo iyo hawada ka soo baxay kulaalka daraadii teeta weynka isla markaas gudaheeda ugu dambeeyay ka waxa Captain Levi waa imaadeen erin si ay u caawiyaan Sooria iyadoo soo xirabto waxa badbaadinayso Mikasa Jan iyo Captain Levi sigida erin si fudud ugu furayaan laakiin oo teeta weynka meesha dhan burburaba xataa naftooda halis u yahay sababtoo meesha dhan ku dumayso kala saacan kooxda Kenny ma banoola oo maleeyahay meesha dhan ku duntay intay ku gambanooyin Kenny waa noo yahay kooxdiisa wuxuu taagan yahay teeta weynka qaad inta naga soo baxnay Rodriguez ma isku bedel baqtiga ayagana ma ha gudumi rabto Kenny kooxdiisa wuxuu leeyahay ma naas ugu maanna waa dumi rabtaa erin oo intuu nijibo wuxuu taagan yahay ani wax aan sameey karo ma aan loser weyn aan ahay waliba faa'iido aan lahayn mar walba wali badbaadiya waxna ma taro jaarna erin oo markuu arko wuxuu leeyahay maatiya ka dhaaf erin oo sahay aw kartida nagu faani jirta ay dhigirta ani kartiya leeyahay oo teetnis kala dagaalama kartida ma ka hada oo nin jilicsan ma noqotay kooni wuxuu leeyahay anigu mar walba waxaan ku badbaadinayna in rajada aadanaha tahay qofkii ah rajadii aadanaha hadoo sidaan oo ooyay anigu sidee noqon karnaane Captain Levi markaas wuxuu leeyahay erin waa dhibsan mar walba in hadalkan ku dhaho laakiin waxa ku sheega hadda cid amar ha ka qaadan oo adiga Joska ku badbaadiy dadkan waxa rabta sameey xurnimadaada qaado adiga go'aankaaga gaar markaas erin wuxuu soo xasuusana markii kooxda Captain Levi la baabi'inayo oo asiga amarkiisa qaadanayay hadoo maalintaas isbedel lahayd kooxda Captain Levi dhamaantood ma dhinteen hadoo Joskiisa qaadan lahayd Captain Levi maalintaas uu sheegay in xurnimadiisa qaato dadkan ku badbaadiyay laakiin asaa Joskiisa qaatay oo hadalkooda yeelay isla markaas lagu jiro erin wuxuu arkaa dhala meel taala dhalaas ay ku qorantay difaac dhalaasna waxay la socotay cirbadii deetanka ee hoosteeri lagu dhig rabay erin asoo aad u ooyay intuu dhalaas soo qaato afkay too gishto hamar teetan isku bedelaa markuu isbedelna daawaday erin wuxuu gacanta ku dhigaa maadada ironka ee dhalada ahayd oo aan isticmaalaysay ugu dambeeyay erin qudradas gacanta ku dhiga meel walba dhalo ku dhiga asoo qudradas isticmaalay sidoo kale wuxuu ku difaaca si asxaabtiisa ku badbaadiyo maadadana meel walba ay qabsanay Armin iyo yarkalna banaanka ku sugayn Hanji meesha ka badbaadinayeen oo Hanji ugu dambeeyay way nooshahay Hanji ma dhimanin dhanka gudahana erin dhamaantood wuu badbaadiyay sidoo kale qudrada cajiibka inay tahay meel walba waxay ka dhigtay sida difaac oo yacni darbi walba burburay way ku dhigtaba Levi wuxuu leeyahay hadda adiga erin xurmada qaad waxa awood mujida xurmada mar walba qaadi oo dadka xurmada ku difaac laakiin sidee qudradan ku sameeysanay erin wuxuu leeyahay inta isbedelin karo waxa cabay dhalo ku qoran difaac jirka dhalaas ma ka cabay isbedelay ka bacdi qodwa awood in qudrada isticmaalo Levi wuxuu leeyahay qudrada u jeedid aadanaha muhiim u tahay sidoo kale darbi walba naga jabo waa ku difaaci karnaa waa ku xiji karnaa waxaana ogaatay sidoo kale inaan ku soo celin karno darbiga Maariya darbiga koowaad erin intoon wuxuu leeyahay xaafadeeda horma ku soo celin karaane muddo 5 sano ka hor xaafadeeda ahayd Divine wuxuu leeyahay ha waa awooda sida lagu tagaada qudrada u isticmaasho markaas kadib dhamaantood banaanka ay soo baxaan Armin caawinayo kooxda Captain Levi waxay la kulmayaan Tali Irwin Captain Levi wuxuu u sheegay in teeta ka soo weyn oo yahay Rodriguez sidoo kale oo ku wajahan yahay dhanka aadanaha ay ku sugan yihiin Tali Irwin wuxuu leeyahay waxa karna teeta kan aad dabgal oo kaliya Hanjina oo ugu dambeyntii Hanji hadalada khibrad badan dhageysanona Hanjina rakaabka waxay la saaran tahay erin iyo Sooria waxayna leedahay waxay leedahay Rodriguez hadafkiisu wuxuu ahaa teeta loo yaqaan teetikii asaasiga wuxuuna jirkiisa ku jiray erin teetakaasna waxa uu hibeeyay erin aabiisa sidoo kale wuxuuna ka soo xaday boqortooyada Rodriguez wuxuu hadafkiisa ahaa in teetakaas soo cishto awoodisna ma isticmaali karo qof aan ka tirsanay boqortooyada Reis aan dhiig boqortooyada jirkiisa aan ku jirin ayadoo sidaas ay tahay familka boqortooyada Reis ayaga kaliya isticmaali karaan teetaka asaasiga diradiisa laakiin waxay raaceen shuruudo sameeyay boqorkii koowaad ee aadanaha shuruudaasna markay raaceen waxay
go'aan ku gaareen in aadanaha awoodan garab ay ku siinin hadal xiise iga dhahay leedahay Hanji Eren wuxuu leeyahay Rodriguez sigoo Titan hadda iyo cun wuxuu ku soo laaba bil aadan sidaasna waxa ku awoodi karnaa in Titan qudradiisa asaasiga isticmaalno oo aadanaha ku badbaadino Captain Levi wuxuu leeyahay hadalkaagu waa macquul Rodriguez dad bil aadan inta u soo celinaa waliba gacanta ku dhigno sidoo kale shuruudihii feega ah boqorkii koowaad u sameeyay maskaxdiisa ku jira aan ka tirtirno aan ku qasabnay inuu isticmaalo Titan asaasiga qudradiisa sidaas oo ku badbaadiyo aadanaha waa macquul inaad sidaas sameyn karno Eren adiga diyaar ma u tahay inaad sidaas la sameeyo Eren wuxuu leeyahay hadii aadanaha ay ku badbaadiso dhammaan weynaxaya mikasna waxay leedahay Eren naftaas ku weynaysa saas macquul ma aha anu ka barbin bahdo Eren dhimanayo maxaa weerkii Titan ka fiirsanaya sidoo kale jinalkayga dhanaba hoos u dhacay hadoo Eren dhintay markaasna history soo bodo waxay leedahay aniga waxay la tahay wada kale inay jirto ani fikirta ma qaadan karo waayo hadii la sameeyo wax weyn dhacayo oo dhibaato weyn waliba Titan asaasiga wuxuu awoodaa aadanaha oo dhan inuu xasuusahooda tirtiro micnaha ku jirtana ay tahay hadoo Rodriguez oo Eren cuno oo isticmaalo qudrada Titan asaasiga inta aslina shuruudihii boqorkii koowaad oo sameeyay maskaxdiisa ka tirtir anu koob xasuusiyay tirtiraaba wixii aan ka ognahay inuu yahaadayaan Armin wuxuu leeyahay hawaarun hadii xataa qudrada Titan asaasiga oo isticmaalo anu kuma hubna dhakin inuu la jirayo xataa war Armin mar walba maskaxdana ku jeclaaba history waxay leedahay ani waxa u maleeyahay in wada kale ay jirto wadadaas ay cadeynaysa Eren aabiisa oo yacni Eren aabiis Titan asaasiga xogtiisa dhow ogaa asiga oo ogaa in quwadan isticmaali karto boqortooyada oo kaliya gacanta ku dhigo sidoo kale walaasheeda wuu ka qaaday sidoo kale wuxuu baabaashay familka boqortooyada oo dhan taasna Eren maxay kula tahana aabahaaga wuxuu naga badbaadinayay boqorkii koowaad shuruudihiisa wuxuuna awoodan kuugu aaminay inay jirto wada kale oo aadanaha lagu badbaadin karo wadadaasna qofka kaliya sameyn karo waa adiga Eren Eren markaas wuxuu soo xasuusanay aabiisa oo dhahay hadaarad mikasi Armin inay badbaadiso waa ina barata awoodan sida loo isticmaalo Eren ilaa hadda xasuusaas maskaxdiisa way ku jirtaa laakiin ani sida ila tahay xasuusaa wali waxa ka dhiman awoodan qaab markii loo fiiriyo Eren hore uu isticmaalno waana aragna soo isticmaalay saa xasuustiin seasonka labaad markuu Titan Eren gacanta ku taabanayay Titan madan waxay ku leexdeen Titan kaas oo hooyadiisa cunayay taas oo macnaheedu tahay inuu Eren xukumay Titanska mahas ku sugnayeen si fiicanna markii loo fiiriyo wuxuu isticmaalay qudrada Titanka asaasiga Titan kaasna wuxuu awooday Rodriguez sidoo noo sheegay in Titanska kala xataa xukumi karo sidaas daraadeed history waxay ku leedahay aabahaaga sabab la'aan awoodan farta kaama saarin markaas kadib waxay imaanayaan caasimada ee darbiga Siina Captain Levi wuxuu leeyahay history waxa rabaa inaan ku sheega hadal muhiim ah hadalkaas oo Erwin igu amray inaan ku ogeysiiyo historia bari subaxii adaa lagu magacaabi doonaa boqorada aadanaha cusub dhammaan weynaxaya markay hadalkaas maqlaan ma history ma noqon doonta boqorada aadanaha oo dhan cid kale ma jirtaba waaba ayda boqoradeena saxda ah boqorada aadanaha oo dhan history rise qoys kale ama qof kale dhiiga boqortooyada leh ma harinba ay ayda ka ahayn historyna aad u naxsanta waa markii ugu horeey waajib saa u weyn dusha laga saaro history waxay leedahay Captain Levi aniga waajibkan oo kale aad ugu adag yahay laakiin hadee tahay mid kaliya aniga waajib igu ah waa sameeyna laakiin inta boqornimada li aqoonsanin ka hor hal shay ma ka dalban karaa Captain Levi wuxuu leeyahay maxaa waayna history waxay leedahay waxa rabaa in missionkan iidayso waajibkayga ugu dambeeya kooxda saaminta inaan sameeyo oo aabahayga gacanteeda ku dilo ma ay ogolaan kartaa inaan waajibkeeda guto Captain Levi wuxuu leeyahay waa guda kartaa markaasna history waxay ka soo qayb galay shirka kooxda saaminta iyadoo gashan dareeskii ugu dambeeya kooxda saaminta markaasna mikas history waxay ku leedahay ninkan u jeeda gaaban oo isku tilmaamay aadanaha uu awood badan hadda boqorad naqato asiga tafiir oo gelin kartaa idan waa ka sareysaa historyna aad u yaabay ma ilmeysa uu qabtaa Captain Levi subaxii markii la gaaro Rodriguez wuxuu aad ugu soo dhawaaday darbiga dhammaan kooxda darbiga iyo sidoo kale kooxda saaminta maxay ku ridooyin madaafiic tirad badan laakiin Titan kaas u jeediyay wax ma ka tareyso laakiin satali Erwin wuxuu u diyaariyay miinooyin tiro badan miinooyinkaas loogu talagalay markuu soo dhawaaday in lagu qarxiyo markaas gudaheeda inta lagu jiro tali Erwin wuxuu u maanaa history wuxuu ku leeyahay Levi waa ka maqashay soo maahan inaan noqon doonto boqorada saddexda darbi history waxay leedahay waxaas marra ku soo talagalay in mas'uuliyadda qaado Erwin koro ka fiirinayo wuxuu leeyahay history daciif ah ku manager laakiin sakartiya yeelatay laakiin xaqiiqada qofka daciifka aniga waay mar walba dadka nolosheeda difaacayaan oo aniga soo badbaadinayaan waxa ka dhigtay dhimashadooda wax iska caadiya anigu Titanska aad u necbaa sidoo kale waxaa noqday Titan sidaas ay tahay awoodan waa caadiystay in isticmaalo taas macnaheedu waxay tarjumay inaa daciif ah markaasna Eren oo ka safiiriyo oo wuxuu soo xasuusanaa gabadhii hooyadiisa ku ameynistay inuu ilaaliyo laakiin asiga ay difaaciisaba aad oo Eren isku xishoona markaasna fear isku qabana asigana wuxuu leeyahay waa ina canaanta basterkan aan waxba tareenin markaas gudaheeda inta lagu jiro Rodriguez Titanki uu soo dhawaaday waliba darbiga aad u qabsanawa Eren Titan isku bedela si qorshaha tali Eren lagu dhaqaaqo marka hore rakaaba in miinooyinka la saaro oo geesaha lagu qarxiyo oo dhaqaaqi waayo Eren miinooyin trickiya inta soo qabto afka galina afkiisna aad u dilacsan yahay waayo sababta maatan wajigiisa dhulka ku gurgurinay Rodriguez si xoog badan inta u qorxo ayaa hilbihiisa oo dhan kala daadanaya walisaas kuma dhamaanay baashe waxa rabaa kooxda saaminta in isticmaalaan ODM gearkooda hilbahan oo Titanka ay yareeyaan dhammaan kooxda Captain Levi ee kooxda saaminta inta ODM gearkooda isticmaalaan hilbaha yareeyaan sidoo kale historia midka u dambeysay intee jirta wuxuu ku naqanaa Rodriguez aabaheeda inuu asiga oo ahaa sidaas ay ugu guuleysanayaan kooxda saaminta Titankii weynaada Rodriguez historia magaalada dhexdeeda inta ku dhacdo
story waxay leedahay in dadkan had runta u sheega Iran hadalkeeda inta kor u qaada sida boqorada kale waxay leedahay aniga magacaygu waa Historia Reis boqorada saxda ee aadanaha oo dhan aniga ayaa noqon doona qofka saddexdan darbi gudihiisa maamuli doona sidoo kale dadka ku sugan oo warkaali Historia saadam meed karta u yeelatay ee goormeysaan ay noqotay markaas kadib waxa arkeena qoraxdo sii dhici rabtay Levi inuu la kulmo Kenny markaas aad u dhaawacan yahay oo asxaabtiisa oo dhan meesha ku duntay asiga kaligiisa ka badbaaday Levi wuxuu leeyahay sida ila egta asxaabta dhan kaliya ka haray laakiin Kenny dhaawaca midka ka badbaadaysid ma ahan waa midka ku dhimanaysid Kenny wuxuu leeyahay waa laga yaabaa inuu ku dhinto laakiin kan hada isticmaalo markaas wuxuu soo bixinaa cirbadii teetanka lagu naqanay Levi hal mar oo dhaxa Kenny wuxuu leeyahay Rodriguez cirbadan ka soo xaday inta meesha ka soo bixin ka hor sida la sheegay hadoo cirbadan qof isku dhufato teetan isku bedela ama aniga isku dhuftaa isku baroobeeya maya Kenny hada degin hada isku dhufata xataa teetan sax ma noqonaysa teetanka dabaalka oo kala noqonay maana ma joogo qof qudrada teetanka leh oo cunaya markaas bini aadan soo laabanaya marka wax kama faa'iidaayo Kenny wuxuu leeyahay Levi marqal wajiga ma ka fiiriyo waxa ku soo xasuustaa Kujeel gabadhaas Kujeel lagu magacaabo dhulka hoostiisa ku yaqaan Kenny marka ugu dambeeyay oo la kulmay Kujeel gurigeeda ugu tagay wuxuu arkay inay mar geeriyootaba sidoo kale markaas wuxuu arkay in hal ubad ka tagto ubadkaasna uu ahaa Levi asigana wuxuu go'aansaday ubadka ee ka tagtay inuu xoogaa inta karankiisa oo wax badan baro dibna Kenny uu si dhaqaajiyay oo markaas uu ka tagay Levi Kenny kor intuu qosl wuxuu leeyahay Kujeel kaligeeda ma ahan bil aadan waa isku mid xataa aniga qaar qamri raadinayaan sidoo kale qaarna dumar raadinayaan qaarna ay abuuranayaan diin ay xoog ay saarayaan qaarna waxay aaminsan yihiin ay ku dadaalayaan qaarna xoog ay saarayaan boqorkooda si kalsooni ugu helaan qaarna riyooyinkooda xoog saarayaan qaarna ubadkooda qaarna si awoodooda ay ku wiciyaan dhamaantooda waxay adduunkan u joogeen inay waxba xoog ay saaraan laakiinse dhamaantooda waxay ka samnaayeen hal meel inay waxba ay raadinayeen inta adduunka joogeen dhamaantiina waxba adoon u lahay markaas Levi inta soo boodo xooliya Kenny ii sheeg sababta boqorka aadanaha ugu difaaci waayay Tetaniska maxaa waaye Kenny markaas xooliya inuu waxba kama oga arintan laakiin waxa ogaa oo kaliya akarmaka in boqorka la u shaqeey jireen Levi markaas xooliya waxa jirta arin kale maskaxdeeda dhowr mar ku wareegaysay adiga hooyadii marba gurigeeda ku soo booqo jirtay kala adiga hooyadeed maxaa isku tiin xariiq niga dhaxayna maxaa waaye Kenny inta qoslo xooliya maxaa adiga nacastahay Levi waxa ka hadlaysaa Kujeel aniga walaalkeeda ahay oo Levi wuu naxay haydhiin ma yahay dhiin qofka intaas muddo oo la dagaalamay kaalmo abtigiisa ma ahay waxaas wax macquul ah ma ahan Levi markaas wuxuu leeyahay maalintaas aniga maxaa iga tagtay Kenny wuxuu ugu jawaabay maya abtigiisa wuxuu ugu jawaabaa sababtoo sidaas u sameeyay oo kaliya inuu asiga wax caruura aan rabin oo u muuqrin inuu aabba yahay oo kale ma intaas doqono Kenny halahaas oo kaliya ma uga tagtay markaas oo Kenny cirbada farta ka saara Kenny xanuunka zaid u hay sidaas uu ku dhimana wallahi waa dhimasho xanuun badan markii loo fiiriyo Levi qisadiisa war hooyadiisa waay abtigiisa waay familkiisa waay asxaabtiisa waay walaalihiisa Faran iyo Isabel isla soo koreen xataa wuu waay qof walba oo jecel Levi hal u weynooya war qoraaga ninka muxuu ka galafsado oo saan dhan ugu galaa dhanka kalena waxa arkeena oo farxad weyn ka jirto oo Historia loo saaray taajka boqortooynimada oo Historia ugu dambeeyay way noqotay boqorada aadanaha oo dhan taajka boqortooyadana waa loo saaray dhamaan wixii meesha joogeen sidoo kale ciidamada oo dhan waxay ku farxeen Historia boqortooyada qaaday sababtoo waxay ka xoroobeen boqortooynimada feega ah sidaas ay guul weyn iyo farxad weyn aadanaha ku heleeleen marka sidii Historia markay boqorada noqoto waxay rabtaa awood in Levi tosto waxaas mikaas maskaxdeeda ku soo shubtay wuxuu dhowyahay Historia waxaas iska daa kuwaan waxay dhowyiin kartida leedahay Historia waa beelo waayba dhamaantooda xiisaa ku hayso waxay rabaan Levi sidoo noqon doona inay arkaan Levi way u maadeen markaas kadib maxaa dhacay war Historia maxaa sameysay kabtaada nooma gashay bismillah sidee u sameysay waxaan Levi ma gacan loo qaadi karaaba waligeed ma badhicin markaas Historia ta qosashay wixii leedahay maxaa ka leedahay boqornimadeeda hadda hadal dhiirtay ana boqorada Levi marka uu wareysay toodal cadeey wuxuu leeyahay dhamaantiin asxaabi waa mahsantiin Levi wuu dhul cadeey runtii marka uu wareysay Levi dhul cadeynaya arkay waay wallahi hadda Levi ka dhul cadeeysan wax kala tihiin markaas kadib daawada waxa arkayna wax la yaab ah in teetikii gaashaanka asna zaid loo burburiyay oo aad looga adkaaday waxayna ku sugiyiin darbiga Maria oo Tetaniska haystay Rainerna waxa ka guuleystay teetikii waxshiga ahaa waxay saas u sameynayeen in awoodooda training gareynayeen teetikii waxshiga xooliya mar kale ka guuleystay Rainer Bertrand Rainer teetikii ka soo saarna ninkina oo soo bax oo war teetikii waxshiga ninka ku jiro waa nin oo kiyaalo wato kaal ninka horma u aragnana maya anina arkay lama aha markaas wuxuu leeyahay waa xiliga ku dhaqaaqay lahayn missionkiina aani Neon Heart asoo badbaadinayna war kaali waxay rabaa in aani soo cishtaan ma aani ma soo cisho doonaan mise kooxda saameynta iyo ayaga dagaal weyn dhaxmari doona wuxuu leeyahay ninka marna waxa aragna asoo Tetaniska amraayo waxa soo dhan waxa ku arki doona xalqadina soo socota insha Allah xalqadan daa ka heshay laagtii subscribe ka hanaga loobina xalqadina soo socota waxa arki doonaa in qodradii dhalada ee hado Eren Hilaay oo cusbeed aadanaha in faa'iido weyn ay u noqotay oo meel walba lagu celin karo sidoo kale aadanaha oo bartay xirfado kale oo Tetaniska lagu dili karo iyo in aragnay in ku guuleysnay halka cirbad aan ka heeno oo Tetaniska lagu bedeli karo iyo waxyaabo badan oo xiiso ah waxaan ku arki doonaa xalqadina soo socota waana baartigeena labaad ee season 3 geena